daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta Bollywoodka. Barnaamijka falaqaynta Bollywoodka waxaa ku soo qaadanaynaa Director Ram Gopal Verma ayaa weerar xoogan oo afka ah ku qaaday Tiger Shroff. Ram Gopal Verma ayaa Tiger ku tilmaamay lagaroone ama nin aan dhamaystirnayn, sidoo kalena wuxuu yiri jirkiisa ayuu banaanka soo dhigaa sida adirishooyinka qaaban oo kale. Haddaba Ram Gopal Verma aflagaadadii uu u geystay Tiger Shroff dad badan ayaa ka caroodeen, waxaana ka hadleen Tiger hooyadiisa Ayesha Shroff iyo walaashiisa Krishna Shroff, waxayna ku tilmaameen hadalka ka soo yeeray Verma mid raqiis ah. Sidoo kalena waxay sheegeen wiilkooda inuu yahay nin rag ah adduunkana uu ku awood badan yahay. Tiger Shroff ayaa sidoo kale arrinkan si qabow kaga hadlay, wuxuuna yiri Ram Gopal Verma waa filim sameeye rugcadaa ah, sidoo kalena fikradiisu uu madax bannaan yahay. Waxaa xaqiiq ah inaan aabbahay gaari karin. Aabbahay waa keesiga asaliga Bollywoodka. Ugu dambeyntii Jackie Shroff ayaa sheekadan ka hadlay, wuxuuna yiri Ram Gopal Verma wiilkayga ayuu wax ka sheegay ama ka hadlay, laakiin taas micnaheeda ma ahan inaan u tegi doono oo aan la dagaali doono. Dabcan Jackie Shroff si asluubeysan ayuu arrinkan kaga hadlay, wuxuuna rabin in muran xoogan uu baraha bulshada ka abuuro, balse waa macquul in si toos ah Ram Gopal Verma uu la hadli doono una sheegi doono inuu ku fogaaday sawirka bixinta nolosha wiilkiisa Tiger Shroff. Ram Gopal Verma wuxuu director ka ahay filimkii Rangela, waxaana wada hogaaminayeen Aamir Khan iyo Urmila iyo Jackie Shroff, wuxuuna soo baxay 1995. barnaamijkan waxaan idin socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. Amaana Allah sidaasi nabadgelyo.